wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland iyo maamulka shirkadda maamushaha amaha shidaalka Berbera ee magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan BOG ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo xarunta kaydka shidaalka Berbera. Mashaariicdan oo iskugu jira dhismaha 5 haamood oo cusayb ah iyo 3 haamood oo dayactir lagu sameeyo ayaa waxaa ka hadlay munaasabadii lagu dhagax dhigayay gudoomiyaha boorka sare ee shirkadda BOG Engineer Ali Yaasin iyo maarayaha shirkadaasi Maxamuud Gahayr Ismaaciil kuwaasi oo ka warbixiyay dhismaha mashaariicdani ay ka bilaabeen xarunta kaydka shidaalka Berbera. Mashruucan dambe imika aynu bilownay oo ah 5 haamood oo dib loo hagaajinayo iyo 3 baabay oo aan ayaga meel laga soo aan soo kaban karaynin oo aynu meesha ka qaadayno oo aynu doonayno inuu kordhino maxaa capacity-ga soo brigareeyay shirkadda la yiraahdo Modran iyo shirkadda la yiraahdo Assalama iyo shirkadda la yiraahdo Technicom oo Middle East ayaa markaa ku guuleysatay marka mashruucaanu civil work iyo metal work wuxuu noqonayaa 1,250,000 buu noqonayaa wuxuu isugu jiraa 735 ay ku guuleysatay shirkadda imika dib u habeynaysa tangi 8 tangi waxay kala yihiin A3 A1 oo iyaga laga sameyn doono kofarka iyo xagga hoose bileeyada hoose laga jari doono oo dib loo sameyn doono saddexdan S1 S2 iyo S3 oo ah qaybtii Ingiriisku sameeyay 1956kii oo iyaguna dhamaantood dib looga shaqeyn doono oo la hagaajin doono hadda ma shaqeeyaan way fadhiyaan saddexdaas waxay imika fadhiyeen muddo dhowr shan intii dalka soo galay way fadhiyeen hadda ayaa dib loo cusboonaysiinayaa waxa kale oo meesha laga saarayaa 3 taangi oo ah qaybtii ruushku inoo sameeyay ka mid ah oo waxa oo dib loo hagaajinayo oo meeshaba laga saarayo oo lagu bedeli doono taangi 3 mitritan qaada 3,000 oo mitritan qaada iyo taangi 8,000 oo mitritan qaada lagu bedeli doono 10,000 waxay isku noqon doonaan saddexdaas 13,000 oo mitritan bay isku noqon doonaan. Waxa iyaguna munaasabada dhagax dhigga mashaariicdan cusub ee laga hirgelinayo haamaha shidaalka Berbera hadallo kooban ka soo jeediyay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland Umar Shacayb Maxamed wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyada Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan kuwaas oo maamulka shirkadda BOG ku amaanay mashaariicda ay ka hirgeliyeen haamaha shidaalka Berbera 8 kale oo iyagana dib loo habaynayo oo iyaguna ka mid noqon doona hawsha dib loogu casriyeynayo haamaha kaydka shidaalka Berbera waan uga mahad celinaynaa kambaniga BOG sida xilkasnimada leh oo hawsha wado ilaa intii hawsha lagu wareejiyay waana dhishtii heshiisku ahaa in haamaha la casri gareeyo oo shidaal ku filan dalka la helo oo kayd ku filan la helo shaqaduna si hufan u socoto waa wixii muwaadiniinta ganacsatada ah ee reer Somaliland ay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ugu wareejisay ka soo dayactirka imika sida warbixintana lagu siiyay waxa isna kordhiyay capacity-ga sidee ahayd intii qaadi jireen marka dayactirkan lagu sameeyo 10,000 oo mitir cubic baa kordhiyay marka malaad saddexda way jireen waxay hore ka go'ayaan marka 10,000 baa ayaa kordhiyay marka waa capacity aad u badan waxaan filayaa 2018 kana qorshe kale jiro macnaheedu waa investment qiimaha leh xoog runtii ay geliyeen ay mar walba la garab taagan yihiin annaguna runtii markii aan dirisnay mashruuca horena si fiican oo guul ayuu dhamaaday mashruucan dambena waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan oo guul sidii hore kale u dhamaado waan ku hambalyeynaa runtii waxaan baan inta ku darayaa kulli waxa jira taangida wax la sameyn doona 13,000 tan qaadaya marka la isu geeyo si loo helo macnaheedu waxa weeyaan shidaalada dheeraadka hadii jariimka mushkiladina haysta waxa weeyaan shidaalkii waxa imanaya iyadoo macnaheedu waxa weeyaan diboodkeenu uu buuxo amba macnaheedu ay bahli buuxaan meeshii yaala laakiin wixii ka dambeeyay waxaan dadweynaha iyo cid walba la socodsiinayno sheeginaa in
uu noqdo shidaalkii la keenaya amba ciddii wax keenaysaaba inay ku xisaabtanto meesha horta maxaa bannaan maxaan bannaanayn available ma yahay deedna marka ugu horreysa iyagoo oo signalkii haysta oo haysta inay shidaal keeni karaan warqaddii haysta markaas dabeedna ay keeni karaan shidaalka waa Axmed Saciid Maxamed Ariel TV magaalada Berbera.